sida loo ogaado qofka qalbigiisa waxa ku jiro. Sidee ku ogaan kartaa waxa uu qofka ka fakirayo ama sidee u akhrin kartaa marxaladda uu qofka ku sugan yahay? Marka koowaad ee aad qof wada kulantaan, ma taqaanid qofka nooca uu yahay, waxba kale ma socotid dabeecadiisa. Sida awgeed waxaa muhiim ah in isla markaaba aad fahmi karto nooca uu qofka yahay. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagaynaa qaabka aad ku fahmi lahayd qofka iyo nooca uu qofka yahay adigoon waxba warsan. Waa mowduuc muhiim ah, indhahaaga iyo dhagahaaga isii si aad xogta si fiican ugu dhuuxdid. Hana naga iloowin inaad like saarto muuqaalka. Like-ta waxay naga caawin inaan kala ogaano muuqaalada aad ka heshaan iyo kuwa kale. Haddii aad nagu cusub tahay, ka mid noqo asxaabteena oo subscribe dheh. Channelkan waxaan kusoo gudbinaa wax walba oo bulshada wax u taraayo, aadna wax ka faa'iidi doonto insha Allah. Marka aad dhamaysato muuqaalkan, waxa aad kugu fududaanayso inaad fahanto dadka adigoon waxba weydiin, aad sidoo kale fahanto waxyaabaha u qarsoon. Waayahay, kusoo dhawow muuqaalka. Cilmi nafsiga waa maado cajiib ah. Xaqiiqdii waxyaabo aan suurtagal kula muuqan ayuu suurtageliyay. Waxaad si fudud ku ogaan kartaa qofka adigoon waxba warsan. Waxaad ogaan kartaa dabeecadda qofka, marxaladda uu qofka markaa ku sugan yahay, waxa uu ka fikirayo iyo in intaa ka sii badan. Marka intaa laga yimaado, waxaa jiro luqad cajiib ah oo lagu magacaabo luqadda jirka. Macnaheedu marka si fudud loo dhigo, waxa uu noqonayaa dhaqdhaqaaqa iyo ficilada uu jirka bini'aadamka sameeyo isagoo aan is ogeyn. Ka oo ah waxa ugu badan ee uu qofka sameeyo. 55% oo ah waxa aan gudbino waxay ka yimaadaan luqadda jirka. 38% nooca codka. 7 kaliya ayaa ka yimaada hadalkeena iyo waxa aan gudbino. Sida awgeed, muuqaalkan waxaan xooga ku saaraynaa luqadda jirka maadaama ay ka tahay waxa ugu badan marka loo yimaado waxa aan gudbino. Waxaa sidoo kale raaci doona qodobo la xiriira nooca codka ee qofka. Si aad u ogaato dadka, waa inaad aad ugu fiirsataa oo aad taxadar siisaa luqadda jirka ee qofka iyo nooca hadalkooda. 1. Indhaha. Waxa koowaad aan soo qaadanayno waa indhaha qofka. Indhaha cajaa'ib gaar ayay leeyihiin. Waa meesha koowaad ee qofka aad ka ogaan karto waxyaabo badan oo shakhsiyadiisa ku saabsan. Waxaad ka ogaan kartaa daacadnimada qofka, in uu run sheegayo iyo inuu been sheegayo. Indhaha noocyo badan ayay wax u gudbiyaan, mid walbana wax gaar ah ayay ka turjumaysaa. Waxaana ka mid ah qofka oo aan ku eegi karin. Haddii uu mar qof indhaha kaa jeediyo oo indhihiisa iyo kuwaaga uu kala ilaaliyo, arrintaa waxaa loo fasiran karaa laba mid un. 1. Inuu yahay qof been ku sheegayo oo sidaa darteed uu ku eegi karin, iyo midda labaad oo ah inuu yahay qof wax qarinayo laakiin uuna qofka kula wadaagi karin waxyaabaha uu qofka qarinayo. Waxay noqon karaan inuu qofka ku jecel yahay oo uuna ku sheegan karin iyo arrimo kale oo badan. Sida awgeed, haddii aad ku aragto calaamadan qof, si taxadar leh ugu fiirso qofkaas. Qofka oo indhaha kugu guo. Midaan waa lidka midii hore. Haddii aad aragto qof indhaha aan kaa jeedinaynin oo si xun kuu fiirinayo, waa qof isku dayayo inuu kaa cabsiiyo. Haddii aad ku aragto arrintan qof, isku day inaadan u jilcin oo aad ka yeelin cabsida uu kula rabo. Qofka oo indhaha laabo. Haddii uu qofka aad wada hadlaysaan aad aragto isagoo indhaha isku qabsanayo, waa fariin cad oo ku tusaysa in hadalkaaga uu qofka dhibsanayo. Isku day inaad noqoto qof caqli leh oo aad isla markiiba joojiso hadalka aad qofka ku wado. Indhaha uu qofka la laabayo waxay la micno tahay waan dhibsanayaa, iga jooji hadalka. Dhoola cadaynta. Dhoola cadayntu waxay gudbisaa dareenka qofka. Dadku way dhoola cadeeyaan si ay u gudbiyaan ama ugu qariyaan dareenkooda iyo waxa ay ka fikirayaan. Laakiin dhoola cadaynta ayaa laba kala ah, mid ay khiyaano la socoto iyo mid dhaba. Isku day inaad ku kadsoomin dhoola cadaynta beenta. Dhoola cadaynta dhabta ah waxay laalaab ku samaysaa agagaarka indhaha. 3. Isgacan qaadka ama is-salaamida. Qaabka aad qofka isku salaantaan waxay tustaa ama aad ka ogaan kartaa arrimo badan oo qofka u qarsoon. Haddii uu qofka isla marka aad is salaantaan uu gacanta kaala boodo, arrintaas waxay tusaysaa inuu qofkaas uu ku xanaaqsan yahay ama uu jiro khilaaf idinka dhexeeyo. Sababta uu gacanta dhaqso kaala booday ayaa ah in uuna doonayn inaad isku sii fogaataan, ileen xarash ayuu ku hayaa. Laakiin mar uu arrinka waxyaabaha bannaanka ka yahay ayaa jiro, sida marka uu qofka degdegsan yahay ama uu meel ka daahayo. Salaanta ay taabashada la socoto. Marka aad dadka isgacan qaadaan, waxaa dhacda in mararka qaar ay gacanta kale garabka ka saaraan ama ay gacanta ka saaraan. Arrintaas waxay tusaysaa in qofkaas uu kugu faraxsan yahay oo si qalbi furan ku soo dhaweynayo. Laakiin ku salee marxaladda uu qofka ku sugan yahay. Dadka waxay sameeyaan ficilkan marka ay garab istaag ka rabaan, laakiin si cad ayaad u kala saari kartaa labada marxaladba. 4. Dhaqdhaqaaqaaga oo uu qofka koobiyeeyo. Qodobkan muuqaalo badan oo kale ayaan uga hadalnay. Waa daawatay haddii aad ka mid tahay asxaabta Hoyland. Luqadda jirka ee koobiyeynta ama matalidda ama midaaridda waxa dhahdaba ee dhaqdhaqaaqa qofka
waa hab awood badan oo wax badan kuu suurtagelinayo oo ay ka mid yihiin inaad ku guulaysato inuu qofka ku aamino iyo kuwo kale. laakiin muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa midda naga qusayso oo ah sida loogu ogaado waxyaabaha qofka u qarsoon. haddii aad rabto inaad intaa in ka badan ka ogaato, waxaan descriptionka muuqaalkan kuu dhigi muuqaallo uu ku jiro qodobkan iyo sida loo adeegsado. marka uu qofka dhaqdhaqaaqaaga koobiyeeyo, ma aha qofka inuu kas u samaynayo, ee waa wax ku imaada qaab dabiici ah oo isagoo aan is ogeyn ayaa qofka waxaa jiito dhaqdhaqaaqaaga. mana aha wax mar walba iska dhaca. arrintan ayaa dhacda marxalad uu qofka sheekadaada iyo la joogaaga la dhacsan yahay. marka aad qofka wada joogtaan, u fiirso dhaqdhaqaaqa jirkiisa. haddii aad aragto inuu ficiladaada koobiyeynayo, meel fiican baad ka wadaa. taa waxay tusini inuu qofka agtaada uu caajis ku dareemayn. 5. usoo leecsamidda ama usoo fooraridda horay. haddii aad aragto inuu qofka marka aad wada fadhidaan inuu horay usoo tiirsaday ama uu dhankaaga soo aadiyo qaybta hore ee jirkiisa, arrintan ayaa tusaysa in qofka hadalkaaga uu xiisaynayo. dadku waxay horay usoo tiirsadaan markay la fadhiyaan qofka ay ka helaan oo ay xiisaynayaan hadalkiisa. 6. qofka oo dib u tiirsada. waalidka midii aan hadda ka soo hadalnay, tan waxay la micno tahay in qofka aad la hadlayso uuna rabin waxa aad sheegayso oo uu ku daalay, doonayna inuu sii socdo kulankan. haddii aad ku aragto calaamadan qof maanta kadib, waxaad fahmi kartaa signal ama fariin uu qofka kuu diraayo. 7. isku xoqidda ama isku salaaxidda gacmaha. gacmaha waxay soo gudbiyaan waxa maskaxda ay ka fikirayso. haddii aad aragto qof gacmaha isku masaxayo, qofkaas waxa uu ku jiraa marxalad wanaagsan oo farxada. wax wanaagsan buu filanayaa. wax uu ku faraxsan yahay ayuu rajaynayaa imaatankooda. 8. salaaxidda garka. midaan ragga unbay qaas u tahay haye? maya. garka keliya ma waxaa la dhahaa midka ay timaha ku yaalaan? gabdhaha way leeyihiin gar, maxaa jiro? waa kaftan intaa. salaaxidda garka waxaa laga wadaa marka uu qofka mariyo ama taataabto garkiisa. qofka waxa uu masaxaa garkiisa isagoon is ogeyn, marka uu ku jiro fikir dheer oo uu arrin xal u raadinayo ama ka labalabaynayo qaadashada go'aan. ficilka uu samaynayo waxay tustaa in qofka uu gorfeynayo arrinka. haddii aad 100 wax ku dhufatana qofka kuma dareemayo. qofka ilayn howl dheer ayuu ku jiraa. sidoo kale waxaad arki kartaa qofka oo kor ama hoos fiirinayo. 9. sunniyaha. sunniyaha waxay sheegaan waxa uu qofka hoos ka dareemayo ama uu maskaxda ku haysto. sunniyaha ficillo badan ayay sameeyaan oo ay ka mid yihiin in ay kor aadaan. sunniyaha qofka waxay kor aadaan ama kor u kacaan marxalado ay ka mid yihiin marka uu qofka arko wax ka yaabiya ama wax ka cabsiiya. laakiin haddii sunniyaha qofka ay kor aadaan marxalad sida marka aad wada joogtaan oo ayna jirin wax qofka ka yaabiya ama ka cabsiiya, waa fariin uu qofka gudbinayo oo tusinaysa inay ku socon waxa aad sheegayso oo uu ku faraxsaneen. 10. qofka oo gacmaha isjarsiiya. haddii uu qof isgudbiyo ama isjarsiiyo labada gacmood, tan waxay la micno tahay gebi ahaanba warkaaga ma doonayo. si walba uu qofka weji furnaan kuu tusaayo, gacmaha uu isjarsiiyey ayaa dirayso fariin ah inuu qofka rabin hadalkaaga oo gebi ahaanba bilaa micno ku yahay. waa calaamad cad oo muujinaysa inuu qofka gebi ahaanba warkaaga iska xirxiray. adigana haddii aad daldalanto marka aad aragto calaamadan kadib, waxaad meel cidlaa ku luminaysaa hadalkaaga iyo enerjigaada. 11. madax ruxidda badan. madax ruxidda sida caadiga ah waa calaamad muujinayso inuu qofka aqbalay oo uu kugu raacsan yahay arrinka aad ka wada hadlaysaan. sida guud, madax ruxidda waa calaamad muujinaysa inuu qofka raali ka yahay oo uu kugu raacay waxa aad sheegayso. laakiin madax ruxidda joogtada ah ma aha calaamad muujinaysa raacsanaasho ama aqbalaad. qofku waxa uu madaxa ruuxaa in badan marka uu iska dhaafinayo oo uu isleeyahay hal mar uun qofkan ay ka aamusiiya. marka dambe calaamadan qofku aragto, bay ku dheh. 12. qofka oo qaniina ookiyaalihiisa. haddii aad ku aragto qof qaniinaya muraayadda ama ookiyaalaha indhaha, ama ha noqdaan waxyaabo kale oo uu qofka gacanta ku hayo sida qalin iyo wixii la mid ah, waxa ay muujinaysaa in qofkan uu walwalsan yahay oo uu xal u raadinayo arrin la soo gudboonaatay. 13. qofka oo hoos fiiriyo. hoos fiirinta waa calaamad guud oo tusaysa inuu qofka dareemayo liidid iyo hoosayn. hoos fiirinta waxay muujisaa dareemid la'aanta sarrayn. dabcan waxaa jiro dad ay dabeecad u noqotay oo caadi la qabsaday waa hoos fiirinta, laakiin hoos fiirinta ayaa ah calaamad loo aqoonsan yahay arrimaha. 14. qofka oo sanka taabto. ficilkan santaabashada ee uu qofka sameeyo
waxay tustaa inuu qofka daacad ahayn oo daacadnimadiisa ay wax ka qaldan tahay. Ha rumaysan qofka wax walba uu ku sheego ilaa aad iska xaqiijiso, sababtoo ah ma aha qof la aamini karo. ficilka uu sameeyey ayuu isku fashiliyey. 15 qaabka uu qofka u socdo. qaabka uu qofka u socdo waxay gudbisaa fariimo badan. socodka boobsiiska ah waxay muujisaa kalsoonida uu qofka ku qabo naftiisa, halka qofka luuda ee socodkiisa aadka u gaaban yahay ay muujiso dareemid la'aanta sarreyn. haddii aad aragto qof luudaayo, weydii inaad caawin karto. waxaa laga yaabaa in uu yahay qof garab istaag u baahan. 16 nooca hadalka qofka. haddii aan ka soo hadalnay waxyaabo badan oo luuqadda jirka ku saabsan, bal aan haddana fiirinno nooca codka, maadaama uu ahaa waxa labaad ee ugu weyn ee aan gudbinno. nooca hadalka qofka waxaa laga dareemi karaa waxyaabo badan, sida inuu qofka xanaaqsan yahay iyo in kale. marka uu qofka xanaaqsan yahay, heerka codkiisa waa saa'id oo kor ayuu u hadlaa. haddii uu qof kugu jawaabo cod hooseeyana, micnaheedu waa inuu qofka uuna xiisaynayn waxa aad weydiinayso. intaa ayaan kusoo gabagabaynay muuqaalkeeni maanta. ha iloowin inaad like saarto muuqaalkan, aadna subscribe taawato haddii aad naga cusub tahay. waxaan filayaa inaad wax un ka faa'iiday. fadlan like ku muuji, ka helitaankaada la wadaag asxaabtaadana. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.